saaxiibada qiimiga badan ku soo dhawaada xubinta sportska ee telefishinka caalamiga SBTV qodobadan idin hayna waxaa kamid ah meeqa milyan oo euro ayuu Pep Guardiola kaga qayb qaatay dagaalka lagula jiro coronavirus. kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi oo deeq lacageed ku bixiyay la dagaalanka caabuqa coronavirus iyo Pele oo sheegay xidigu uu arko inuu yahay kan ugu fiican kubadda cagta ee adduunka Ronaldo Messi. ومالنما 4 taariikhdu ku beegantahay 25 Maarso sanadka 2020 aynu ku bilownay meeqa milyan oo euro ayuu tababar Pep Guardiola kaga qayb qaatay dagaalka lagula jiro caabuqa coronavirus. waxa isa soo taraya hawldoorada kubadda cagta ee ka qayb qaadanaya ololaha lagula dagaalamayo caabuqa coronavirus waxaana iminka ka mid noqday tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola. macalinka kooxda Sky Blue ayaa lacag gaarsiisan 1 milyan oo euro ku hagaajiyay hay'adda Angel Sorti Dial Foundation si ay ugu fududeyso adeegyada ay ka qabanayso si ay ula dagaalamaan fayraska dunida ku sii fidaya ee COVID-19. lacagtan ayaa lagu qarash gareyn doonaa in lagu iibiyo qalabka ka hortaga iyo la tacaalidda coronavirus sida face mask, gacmo gashiga, qalabka neefta iyo wixii la mid ah. waxaana hay'adda qalabkaasi u qaybin doonta dhammaan xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka Catalonia. ololahani ka socda gobolka uu soo jeediyay macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxaa soo bilowday Colegi Dimitris de Barcelona oo loo soo gaabiyo COMB xilli horaan ay ku bixisay 33 milyan oo euro. dhanka kale kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi oo deeq lacageed ku bixiyay la dagaalanka caabuqa coronavirus. kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi ayaa ka soo qayb noqday ciyaartoyda, tababarayaasha iyo waliba shakhsiyaadka magaca ku dhexle kubadda cagta ee hay'adaha caafimaad iyo waliba cisbitaalada ka caawinaya in la tacaalaan xanuunka dunida faraha ba'an ku haya ee coronavirus. wargeyska Mundo Deportivo ee ka soo baxa dalka Spain ayaa warinaya in lacagta uu bixiyay Lionel Messi ay gaarayso 1 milyan oo euro. lacagtani ayaa loo qaybiyay cisbitaalka lagu magacaabo Hospital Clinic ee ku yaala magaalada Barcelona iyo xarun caafimaad oo ku taala dalka Argentine. cisbitaalka ku yaala magaalada Barcelona ayaa cadeeyay in lacagta iyo waliba taageerada ay Lionel Messi ka heleen, waxaana bartooda Twitter-ka ay ku daawaceen qoraal kooban oo u dhignaa Lionel Messi ayaa deeq soo gaarsiiyay cisbitaalka si loola dagaalamo coronavirus. baraha bulshada ee cisbitaalka ayaa sidoo kale lagu mahadceliyay kabtanka xulka qaranka Argentine iyo kooxda Barcelona kadib taageeradiisii uu sameeyay. qodobka ugu dambeeya xubinta sportska ee telefishinka SBTV, Pele oo sheegay xidiga uu arkay inuu yahay kan ugu fiican kubadda cagta ee adduunka. halyeyga reer Brazil Pele ayaa sheegay xidiga uu arkay inuu yahay kan ugu fiican kubadda cagta ee adduunka. dhinaca kale halyeyga reer Brazil Pele ayaa isku arkay inuu isagu yahay kan ugu fiican taariikhda kubadda cagta ee adduunka oo dhan. Pele ayaa wareysi u bixiyay journalka Bilhado ee dalka Brazil waxaa lagu weydiiyay xidiga uu arko inuu yahay kan ugu fiican adduunka. waxa uu yiri, maanta waxaan arkaa in ciyaaryahanka adduunka ugu fiican uu yahay Cristiano Ronaldo. waxaan u maleynayaa inuu yahay kan ugu fiican maxaa yeelay isagu waa midka u badan ee joogtada ah. ma ilaawi karo Lionel Messi dabcan, laakiin ma awoodo inuu noqdo weeraryahan wax go'aamin kara. dhinaca kale Pele ayaa isku arkay inuu isagu yahay kan ugu fiican taariikhda kubadda cagta adduunka oo dhan. mar arrintani waxa laga weydiiyay waxa uu yiri, waa su'aal ay adag tahay in laga jawaabo. ma awoodno inaan ilaawno Zico iyo Ronaldinho. sidoo kale Yurub waxaa jiray xidigaha Franka Beckenbauer iyo Johan Cruyff, laakiin hadda qalad kuma lihi. waxaan u maleynayaa in kan ugu fiican taariikhda kubadda cagta in aan anigu ahay. Pele wuxuu ahaa koodii ugu fiicnaa dhammaantood ayuu hadalkiisa ku dhammaystiray. saaxiibada qiimiga badan waa inaga inta xubinta sportska ee aad ka daawanaysan telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka. diyaarintii soo jeedintu waa anigoo Jibuni tan iyo xubintan mid lacina. nabadgelyo.